December labadeedii sanadkii tagay ay u geeriyoodeen xabad isku dhex martay Zakariya Maxamuud Xuseen iyo Sooda Maxamuud Xuseen oo ahaa walaalo isxigxiga xagga dhalashada qoyska reer kala foge. Sida ay ku waafaqaysa geerida waa cilmi aanan ogaal u lahayn, laakiin ka dad ahaan asbaabta mowdka way noo sii kala xanuun badan tahay. Qiyaasida uu noqonayo dareenkaaga markaad weydo adiga oo hooyo ah, wiil iyo gabar isugu ka xigay oo aad 20 sano iyo dheeraad u soo carbinaysay sidii ay iyaga wax isku tari lahaayeen adna aad ugu nasan lahayd. Awar anagu cadaalad sugimayno, dad naga horeeyaa waayeen. Cadaalad sugimayno. Ilaahay samir iimaan nasiin ayna naxariisto. Cadaalad ku anaga naga horeeyaa waayeen. Anagu cadaalad sugimayno, arkina mayno. Haddii ay walaalaha yihiin iyadana cabir kale ma laha, waxayse ugu sii daran tahay marka aad joogto dal sidii Soomaaliya ah oo adeegyada dawladeed ee ka falcelinta dembiyada ay yihiin kuwa naadir ah ama nasiibku hiilo u yahay. aad u diyaariyay Israa'iil alaada wax kale marna naga wixii waa dhaceen waxaan rabnaa cadaalad inaan helno. cadaaladana waxa uga fadhino waxa waaye dawladda Soomaaliya ilaa aan cadaalad helnay ma la aasaayo marxuumintaas inta ay qaadato. waxay u ahayd qoyska iyo saaxiibada reer kala foga maalmo xanuun badan oo aanay cid dafiri karin. waxa waaye Zakariya aniga isku galaasay iskoolaas kala soo baxnay. Ilaahay u naxariisto walaalkeen dhimashada ma diidanin, qadarta wax dhacaysa waa in la dhimanaana waa ognaa, laakiin qaabka loo dhimanayo waxay tahay waxan argagax galiyay. dhalinyarana waxa barnaa mustaqbal aan leenahay. dawladda waxba kama haysano, horumar kama haysano, waxba kama haysano, nabadgelyana kama haysano. anaga waxa dhalinyaranahay mu adkaysan karno waxaan nala ku haayo. cadaalada u rabnaa walaalaheen abtigay iyo hawrtay cadaalada u rabnaa. tan kale haddii xataa aan waxba ka heli karin nabadgelyo aan ka helno. hal doorka bulshada ee leh dawlad iyo rayid ayaa si siman oo damqasho leh kaga falceliyay dhacdadaasi xanuunka badan, waxayna si isku mid ah u soo jeediyeen in loo helo cadaalad reer kala foge. dawladda Soomaaliya laamaheeda amniga iyo sharciga ayaa iyana u istaagay sidii loo heli lahaa natiijada sababta dhimashada. waxaana booliiska markii hore uu durbageeyay forensic lab shaybaarka cilmiyeysan 3 fooq oo goobtii mashaqada ka dhacda laga helay. ka hor intaysa hay'adaha amniga baarin CCTV da qarsoon ay leeyihiin. waxa uu suura gashay CID-da inay iswaafajiyaan fooqida qorigii laga riday kadib ciidamada xoogga dalka oo ku soo wareejiyay hay'adda 2 eedeysano oo dhaqdhaqaaqooda kaamirada qarsoon ay qabatay. sida garsoorka ay ka hor cadeeyeen xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida waxay maxkamadda ciidamada dhageysatay markii ugu dambeysay December 30keedii bishii ina dhaaftay doodda labada dhinac. sidoo kale garsoorayaasha iyo ka qaybgalayaasha oo dhan waxa ay daawadeen bandhiga muuqaal xeer ilaalinta ee ka heshay hay'adaha amniga. waxaa halkan ka dhex arki kartaa Cabdi Waayeel Macalaadan Kennedy oo sabab u ahaa dhimashada Zakariya iyo Sooda. waxaa sidoo kale halkan ka ogaan kartaa sida uu uga radan yahay anshaxa ciidamada. weli waxa uu ku handadayaa awoodda dawladnimadu siisay mid gaadiid wato iyo mid lugeenayo oo muujinayso dhaqan xumada u gaarka ah. sidoo kale waxaa la jir kula ahaa mashaqadan Dayax Nuur Cabdi Aadan oo isna 2 xaba ka riday hotel Wehliya intuu gaariga saarnaa, laakiin kadib aanu muujin wax ficil ah oo uu dadku ka cabsi gelinayo. labada eedeysana ay maanta maxkamadda ciidamada ku kala xukuntay 1 Cabdi Waayeel Macalaadan Kennedy xukun dil ah oo ah qisaasta Zakariya Maxamuud Xuseen iyo Sooda Maxamuud Xuseen, halka Dayax Nuur Cabdi Aadan lagu xukumay sanad xabsi ciidan ah oo dhigantay ciqaabta argagax gelinta bulshada. sida uu sheegay dhinacyada dacwadda gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shoote, gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida. Zakariya ayaa ku dhashay Guraceel dabeeqadii 9-meeyadii. waxa uu waxbarashadiisa asaasiga ku soo qaatay Imaam Shaafici. waxa uu sidoo kale heerka koowaad ee jaamacadda ka baxay dabeeqadii 2020 jaamacadda Banaadir oo uu ka bartay kulliyadda dhaqaalaha. waxa uu qorshihiisu ahaa inuu u baxo heerka labaad ee jaamacadda oo uu ku hanweynaa inuu ka soo sameeyo dalka Koonfur Afrika. Sooda oo xigeenka Zakariya waxa ay dhalatay bilowgii 2000. waxa ay saaxiibo dhow ahaayeen walaalkeed Zakariya, waxayna iska xigeen inta kale ee ehelka ah. Allah wada naxariiste. Cabdi Qaadir Ciise, warbaahinta qaranka, Muqdisho.